السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal dhamaan waan idin salaamay markaad joogtaan. maanta waxaan rabaa inaan suuradan soo geliyo tafsiirkeeda laga hadlayo macnaheeda suuratu maacuun. socod wanaagsan inta ka hesha walaalayaashii sheekereya laagtan ii saara inta ugu cusubna subscribe ii taabta. socod wanaagsan. سورة الماعون سورة تن إذن وسورة مكية سورة مكية هوي وحكاها ليس قف عن حق إلهي حق بني آدم عن كف يعني حقوق ذا بني آدم كأي كلها ين الديدي حقوق ذا إلهين عن كون أكسنين قف كاسك هذا سايت المام هقول بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت بل إيجورن الذي متك يكذب بيننا بالدين مالك يسأل البرنت فذلك كاسي الذي كيويان يدع اليتيم أقونك تشيغذا كالريحية ولا يحض أن كجوبابين على طعام المسكين مسكين كقود كيسا أن كجوبابين الله سبحانه وتعالى وحول لي هاي بل إيجا ورن متك بيننا مالك سبال مرنت مالك قيامها كم بيننا يكور كاسي ومتك أقونك تشيغذا كالريحة صفة كواد إلهي وشيغ كافر كا وحويان أقولك جاكذا كالريحة وحقي سمصي يضو إلهي أولي هاي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كو حولها أقول تعنية قرد الرأي الظلمنا كعنية إنما يأكلون في بطونهم نارا على الله هذا نحن ذا بحق كعنيان نار وسيصلون سعيرا ويقري الدونان عذاب هري أي قري دونان يضو إلهي وليه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حولها أقونتها ودوانين إلا بالتي حالة دينا تقول دواتان مويه أحسن وقوة ناقة بدنت يضو سيدا إلهي وليه أيها هذا أقونك شكدك الريحة حقي سوس السنين النبي صلى الله عليه وسلم وحكى السوغان حديث وليه أنيقا أيو كان أقونك ككفالة قابة جنة وحنكونها السيدة مكالي لو دي سكا فرود أيو حريري حديث كلنا وحو كل يهي guri ayaa wanaagsanaaday oo fadli badnaaday gurigaas oo dhexdiisa agoon uu yahay oo laga qiimeeyay guri ayaa xumaaday oo agoon joogo aan laga qiimeeyay iyadoo axaadiista ay aayaadka dhan ay jiraan ayuu hadana agoonka xaqiisa doodsiinaya nimanka abraarta ah markuu ilaahay sifaadkooda tilmaamay muxuu ku tilmaamay ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا waxay qoodinayaan ilaahay leeyahay الطعام cunada bixinayaan oo siinayaan ala hubbihi iyagoo jecel miskiin bay siinayaan oo yatiiman iyo agoon waa asiiran mid maxbuusa sifaadka ilaahay uu ku sheegay abraarta way aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay falaqtahma alaqaba wama adraka ma alaqaba fakku raqaba aw it'aamun fi yawmin dhi masghaba yatiiman dha maqraba aw miskiinan dha matra muujiro karinta كأنما waxaa laga dhigay jannada inay kaga gudban tahay karinta haduu jiro uu jannada galayo maxay tahay karinta jeeritaankeeda ilaahay isaga sheegay fakku raqaba waxa weeyaan raqabad fakinteeda adoon inuu xuray aw it'aamun ama waqoodin fi yawmin maalin dhexdeed la qoodiyo maalinkaas oo diimas qaba gaajo daran u saaxiiba yatiiman agoon inuu qoodiyo daa maqraba qaraba u saaxiiba marka agoonka آياتك يا حديثة يو كوكا فرا بدن يا كهذا يو ولو بهاي ممكن لقرب قبطه حديث بان النبي كسر صلى الله عليه وسلم ولي هاي أقولك دو أويو إله يا وحولي هاي وكم أنك كأوهي المها يركع عن وارد كي سقب ضاضي كان كأوهي واكي هذا السؤال مركا أقولك دوتك إلنا لهن وإنه آد وقت حدرا شرنا يوناك يكوهر سيدي كرا هدي آد كدد أشدو الضريشت هذه أد حميسدنا نار يكوهر سيديا فذلك الذي يدع اليتيم صفة كالله وشيء وحوي ولا يحض على طعام المسكين مسكين كقود كيس دد كان كجو بابنين إلهي مدهين مسكين كأن قوذنين مدهين بل وحو يري مسكين كقود كيس دد كان كجو بابنين مسكين كوحل طر مسكين كوحل صي مدهاي صفة الله بعد إلهي وشيء روح مالك قيامها بينية تاوي ninka mujrimka ah gabadhan waa la mid
markuu naarta galo ilaahay wuxuu ku cilaynayaa uu leeyahay innahu kaana laa yu'minu billahi alcadiim walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin. markuu ilaahay kasoo sheekeeyey naarta iyo siduu wuxuu ku dhex qabsan doono markuu kasoo sheekeeyey wuxuu yidhi innahu isaga kaana wuxuu ahaa laa yu'minu billahi alcadiim allah weyn midkaan rumayn walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin miskiinka quudkiisana dadka aan ku gubaabin. walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin marka miskiinka waa in wax tartaa haddaadan awoodin dadka u sheeg waxaa tiraa walaal ninka kan gabadha tan waxaa la taro inaa sidaa tirahdaa ka war haddaan idhaahno intaasaa la eg tahay maad shaqaysatid aan ku jeesjeesno soo mushkilad ma ah. fawaylun lilmusaliin fawaylun waadi naareed iyo halaag wuxuu u sugnaaday lilmusaliina kuwa tukada aladiina hum kuwaasoo can salaatihim salaadooda xaggooda saahuuna moogan aladiina hum kuwaasoo yuraa'uuna dadka istusiya wayamnacuuna diida almaacuuna samafalka. kan ilahay wuxuu ku tilmaamayaa fawaylu lilmusaliin waadi naareed wuxuu u sugnaaday kuwa tukada kuwa aan tukan ma ah kuwa tukada subxaan allah ilah naga badbaadi aladiina hum can salaatihim saahuun kuwa tukada sifaadkoodu waa sidee kow aladiina hum can salaatihim saahuuna salaadooda ay moogan waa kuwa salaadooda moogan maxaa laga wadaa salaada horta istus ayuu u tukanayaa sida aayadda dambe ay tilmaami doonto istus ayuu u tukanayaa qalbigiisa ma soo xaadirnayo oo salaada iga rid hawshiisa waxa weeye wax kan iga rid dadka qayb siday dhahaanba naga tuur salaada naga rida kaanamaa culays inay ku tahay wa ficlan way ku tahay sida ilaahay uu tilmaamayo wa innahaa lakabiiratun ila cala alkhaashiciin wa innahaa salaadu lakabiiratun ay lathaqiiratun tu culus weeye ila cala alkhaashiciin kuwa khushuuca mooyaane dad kale way ku culus tahay marka salaadii kuwa khushuucayo culays bay ku tahay wakadalika waqtigeeda ayuu kadib dhigayaa marra ka qayb u jarjarayaa waxyaabahaas oo dhan ayaa soo gelaya aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uun kuwaasoo dadka istusiya ujeedadiisa waxa weeye istus waana sifo munaafiqiinta markuu ilahay ka hadlay muxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa salaadda markay u istaagayaan way istaagayaan iyagoo wahsanaya dadka istusiyaan ayuu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala wayamnacuuna almaacuuna sifada kale lagu yaqaan waxa weeye wayamnacuuna almaacuuna samafalkana waa ay diidaan waxaa ugu sarreeya zakada waxaa ugu hooseeya waxyaaba yararka ay dad kala qaataan dariska ah way diidaan ma wanaagsan marka inaad tirahda aniga wixayga qaado igama baxdo ma wanaagsan lagama hadlayo qofka aad u diidaysa hadduu yahay qof aan soo celinin ama dayacayo qofka waa u diidi kartaa laakiin qof caadiya dariska waxyaabaha ay kala qaataan biyaha iyo qaadada iyo bakeeriga waxyaabaha ay kala qaataan inaad diid lama baahna